bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha qodobada xiisaha badan ee maanta barnaamijka aad ku daawa doontaan waxaa ka mid noqon doona Steven Gerrard oo u gacan haatinaya xidigii hore ka wada tirsanaayeen naadiga Liverpool ee Luis Suarez. qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawa doontaan waxaa ka mid noqon doona naadiga Barcelona oo haatan ceyrsanaysa xidiga Ruben Neves. qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawa doontaan waxaa ka mid noqon doona naadiga Manchester City oo barbaro la gashay West Ham United. Jose Pep Guardiola oo fariin kaftana u diray naadiga uu barbaraha la galay West Ham. qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawa doontaan waxaa ka mid noqon doona horyaalka La Liga dalka Spain oo xal ahaa horyaalkii barbaraha naadiyaasha waaweyn ayaana markaasi barbaro galay oo kulamadoodii xalay min hal dhibac helay. qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawa doontaan waxaa ka mid noqon doona Tottenham Hotspur oo ciriiri badan gelinaysa The Gunners Arsenal booskeeda afraad ee usoo bixitaanka horyaalka ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka ku daawa doontaan daahirdiin idin la socodsiinaya. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Reg Sports TV. hagaag daawadayaal waa maalinimo Isniin 16 bisha shanaad ee May sanada 2022. qodobadii aan maqasheen oo faahfaahsan hadaan u gudagalana Steven Gerrard hogaamiyaha naadiga Aston Villa ayaa haatan liiska xidigaha uu suuqa ka doonaya wuxuu safka hore ka dhigay Luis Suarez xidigii hore naadiga Liverpool iyo Barcelona haatan ka tirsan naadiga Atletico Madrid. waxaana tababare Steven Gerrard iyo xidiga Luis Suarez markasoo wada xamaalo jireen garoonka Anfield Road ku ciyaarta naadiga Liverpool. xidigan 35 sano jirka reer Uruguay ayaana doonaya inuu iskaga faaruqo garoonka ay ku ciyaarto Atletico Madrid halkaas uu booska joogtada ka haysan Diego Simeone ayaana xidigan mararka qaar kursiga keedka dhiga. geesta kalena Ruben Neves ayaa laga doonaya garoonka Camp Nou. xidigan ayaana la sheegaya inuu bedel u noqon doono xidiga Manchester United ay raacdeysanaysa ee Frank de Jong kaas oo tababarihiisii hore laga yaabo inuu kula midoobo garoonka Old Trafford. Erik ten Hag tababaraha cusub ee naadiga Manchester ayaana xidigan aad u doonaya balse Barcelona ayaa Ruben Neves u weecinaysa markaan inay xidigan bedel kaga dhigto oo garoonka Camp Nou ay ka soo dejiso. isla wararka Barcelona Robert Lewandowski ayaa aad ugu dhawaanaya inuu markaasi ka mid noqdo naadiga Barcelona. xidigan ayaa naadiga Bavarian ku sheegay inuu si rasmi ah kaga tagi doono markii xilciyaareedkan uu dhamaado wax qandaraasna uusan u kordhi doonin. Barcelona ayaa tani fursad u tahay maadaama raacdo badan ay ugu jirtay xidigan. Boolishkan ayaana doonaya inuu xilciyaareedka soo socda ka xamaasho horyaalka La Liga dalka Spain halkaas oo uu kaga beeri doono naadiga Barcelona. geesta kalena tababaraha naadiga Manchester City Jose Pep Guardiola ayaa si kaftana fariin ugu diray naadiga West Ham United taas oo naadigiisa barbaro kula gashay shalay kulan ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska. waxa uu sheegay in naadiga West Ham ay 4 gool iyo waxba kaga badiso Liverpool kulankeeda xiga si horyaalka Premier League Ingiriiska ay ugu guuleystaan. Jose Pep Guardiola oo ciyaarta markii barbaraha ku dhamaatay kadib la hadlay jariirada The Mirror ayaa sheegay in West Ham uu ka sugayay in 4 gool iyo waxba ay kaga badiyaan Liverpool si horyaalka uu xagooda u maro. waxaana Manchester City shalataas ay kaga dhigan tahay in horyaalka wali uu si xiiso badnaa doono kulanka ugu dambeeya uu noqon doono kan finalka ee lagu kala bixi doono haddii Liverpool labada kulan ee u harsan ay guuleysato. Manchester City-na kulanka u harsan ayaa u noqon doona geeri ama nolol badi oo koobka qaad ama ha laga badiyo oo ha laga qaado. Tottenham Hotspur waxay shalay kulankeedii garaacday naadiga Burnley taas oo ka dhigan in The Gunners Arsenal booskeeda lagu ciriiri doono haddii aysan adkeen oo kulankii isbuucan aysan guuleysan. waxaana The Gunners cadaadis badan saaraya Antonio Conte xidigiisa ugu horeeyay Super Harry Kane. geesta kalena horyaalka La Liga dalka Spain ayaa xalay ahaa horyaalkii barbaraha naadiyaasha waaweyn ee horyaalka safka hore ka hogaaminaya ayaana barbaro kulamadoodii galay. Sevilla iyo Atletico Madrid waa isku barbar dhaceen oo gool iyo gool ay isla dhaafi waayeen. Barcelona Getafe ayay gool la'aan eber ku kala baxeen halka Real Madrid iyo Gadisna gool iyo gool ay ku kala tageen oo Real Madrid waxay ahayd away. waxaana horyaalkan mar hore jeebka ku ritay naadiga cadcadka ee Merengueska Real Madrid iyo Carlo Ancelotti oo mar horeba u dabaaldegay balse natiijooyin yaab leh ayay xalay ahayd maadaama kooxaha waaweyn oo idil ay barbaro galeen.
liga kaalshaha talyaaniga waxaa wada badiyey kooxaha safka hore ka hogaaminaya waxaana AC Milan usii dhawaaneysaa inay muddo dheer kadib ku guuleysato horyaalkoodii ugu horeeyay ee liga kaalshaha talyaaniga ama horyaalka talyaaniga ee Serie A. Napoli ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay naadiga Genoa halka AC Milan Atalanta ay ku dubatay 2 gool iyo waxba. Cagliarina gooldaro 3 gool iyo gool waxay ka qaabishay naadiga kaalinta labaad ee Internazionale, taasi oo ka dhigan in kooxaha waaweyn ee safka koobaad ay ku wada badiyeen oo AC Milan oo kaalinta koobaad, Inter Milan oo labaad iyo Napoli ay kulamadoodii badiyeen. Caawana Juventus oo booska afraad u dagaalamaysa ayaa la sugayaa. horyaalka Premier League Ingiriiska kulan xiiso badan ayaa caawa la daawan doona. The Gunners Arsenal oo u dagaalamaysa soo bixitaanka UEFA Champions League iyo naadiga Newcastle oo ah naadiga ugu qanisan dunida kubadda cagta dhawaan uu la wareegay milkiile Sacuudiya ayaa foodo isdari doona. Newcastle waxay doonaysaa inay horyaalka meel fiican kaga dhameysato oo ka soo fogaato zoonka Serie B-da loogu laabto, halka The Gunners imaanka ku hayso in Tottenham ay kulankoodii soo badiyeen caawana laga doonayo inay guuleystaan, haddii kale booskooda ayay wey doonaan oo booska afraad ayaa markaa noqon doona mid hubanti la'aan. guud ahaan intaas ayaan jeclahay inaan kusoo afmeero barnaamijka muuqaalka ciyaaraha daahidina idinla socodsiinayo tan iyo barnaamijkan lamid inta dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.